وبرنامجكي خول إي خورال أو أن مانتا كفلنقين إنو بوغا أي خلينك أخادتي خورا حمد حسين محمود runtii buugga wuxuu ifinayaa siyaabo dhowr ah oo qofku naftiisa rajo ugu abuuri karo si kastoo ay xaaladdu cakiran tahay. qoraaga waxay talooyinkeedii si qurux badan ugu cabiraysaa buugga ayadoo maciinsanaysa diinta, culumta maadiga ah ee psychologiga loo yaqaano ama cilmu nafsiga, suugaanteennii iyo sheekooyin fara badan, taasoo u sahlaya akhristaha inuu u cuntamo buugga akhrintiisa. buugga talooyin badan ayaad ka helaysaa, laakiin haddii qaar ka mid ahi aan halkan ku soo koobo, waxaa ka mid ah waa inuu qofku aqbalaa murugada iyo caqabadaha jira oo wax waliba siday u dhaceen ama u jiraan u qaabilaa una qeexa. waa inuu isla markiiba rajo dhigin, waan inuu ogaadaa nolosha imtixaankeeda inay qof walba taabanayso oo uu qofkaa keliya ku ekeen, kuna dhaqaaqaa xalinta wax alla wixii uu qofkaa ka qaban karo. wixii uu wax ka qaban karinna uusan noqon qof keligii socdo ah, uu la wadaago qof kale oo ku kalsoon yahay, lana qaybsado arrinka. dhibaatada jirta waxay tahay hadduu qofku uu aqbalin xaaladiisa ama murugada, qofkaa ayay curyaaminaysaa oo qofkaa waxaa dhici karta si uu isu ilowsiiyo inuu qofkaa ku talax tago balwadda, cuntada, dukaamaysiga iyo wixii la mid ah, kuwaanoo farxad dhalanteed ah ku siinaya muddo kooban, kadibna ku sii labalaabaya murugada. khubarada cunnada ayaa waxay sheegaan stresska ama walwalka iyo cayilka inay isbarbar socdaan, sidoo kale dukaamaysiga iyo walwalka iyo walbahaarka inay isdaba socdaan. waxaa arkaysaa qofkii markuu walwalayo uu walbahaarayo in walwalka dartii baakad weyn oo buskod ah uu cunaya asagoona ogeen meel ay ka martay, ama waxaa dhici karta kiilo jalaataha inuu cuno oo ogaan meeshuu ka maray, qofkaana cayil dheeraad ah uu ku sii korarsado. waxaanoo dhanna waa cudurdaar qofka isu sameynayo inuusan ku howlgelin ama uu dhaqaaqin. marka waa in nafsadda cudurdaarka laga yareeyaa oo runta loo sheegaa. si taa looga baxo, qoraaga wuxuu ku talinayaa inuu qofku xakameeyo walbahaarka ama kashalayga wixii tegay iyo ka warwarka ama ka walwalka waxa aanan dhicin mustaqbalka. hadduu qofku taa ku guulaysto oo xakameeyo labada xaaladood, waxaa qofku u fududaanaya inuu dareenkiisa u jiheeyo dhanka quman siduu wax uga qaban lahaa dhibaatooyinka soo wajahay. waxay kaloo ku talinaysaa si uu qofku u xakameeyo malooyinka iyo malaxumada maskaxdiisa ka guuxaya, inuu qofkaa qoro dareemaha uu dareemayo. markuu qoro uu qalinka ku reebo murugadii uuna akhriyo, waxa u soo baxayo in malooyinkaasoo dhan ay mala awaal yihiin ama badankoodii been yihiin, taasoo u sahlaysa qofka inuu ka nafaso waxyaabihii ka dhex guuxayay. sidoo kale qoraagu wuxuu ku ifinayaa buugga ahmiyadda ay leedahay inuu qofka daryeelo nafsadiisa xilliyada culayska. way fududahay inaad ilowda naftaada, maadaama maanka iyo jirka ay isku xiran yihiin. jirkaaga iyo nafsadaada aad daryeesho wuxuu yareynayaa walwalka joogtada ah iyo urugta murugada ay sababayso. maxaa yeelay murugada urug ayay sababaysaa, naftaadoo aad daryeeshana waxay yareynaysaa urugada. ugu dambeyntii, qoraa xamda waxay talooyinkeeda tiir uga dhigaysaa ahmiyadda ay leedahay inuu qofka la yimaado niyad cad iyo rabitaan, iyo inuu u howlgalo ama joogteeyo tallaabooyinka toosan uu uga bixi lahaa dhibaatooyinka qofkaa soo wajahay. uu ilaahayna tala saartaa, malada uu qofka alla ka qabana inuu ahaado malo fiican. arrinkan ayaa wuxuu isoo xasuusiyey mahmahdii saddexleyda ahayd ee Soomaaliyeed ee oranaysay 3 waxyaalood eebbaweyne waa karaa mase yeelo, dhisan maaye allow dhal isii, eebbaweyne waa karaa mase yeelo, xoogsan maaye allow xoole isii, eebba waa karaa mase yeelo, camal falan maaye allow ha cadaabin, eebbaweyne waa karaa mase yeelo. buugga sidoo kale waxaa ka helaysaa ereybixinno aad u wanaagsan oo fasiraya culumta psychologiga
gaar ahaanna waxay aad u kaalmeynaysaa ardada baranaya cilmu nafsiga ama psychologiga, maadaama ay ku jirto erayo badan oo reer galbeed ah una baahan eray bixin Soomaaliyeed. qoraaga wuxuu aad ugu dadaalay inuu eray bixinno sahlan oo qurxan oo cuntamayo uu ku yacni cabiro afkaarta psychologiga ama cilmu nafsiga reer galbeedka, taasoo u sahlaysa ardayga baranaya psychologiga ama dhakhaatiirta ku takhasusaysa cilmu nafsiga inay helaan erayo u sahlaya inay bukaanka Soomaaliyeed ula macaamilaan hadduu Ilaahay yiraahdo. nuxurka buugga waa dhibka dheef ayaa ka dambeeya, falcelintaada ha noqoto mid quman, ilaahayna tala saaro. baaraka allaahu fiikum. waa walaalkiin Baazi iyo barnaamijkii Qool iyo Qoraal.